Assalaamu calaykum. Halkaad naga dhagaysanayso waa Maanbedel Podcast. Koobkaaga kafeega soo qaado, earphone-kaaga dhagaha gasho, kadibna nala gal safar garaad gurug. Maantaytole topic-aan la faguri doono waxaa nagu magac daray Paradigm Shift ama garaad rog. Waxaan filayaa inay jiraan dad fara badan oo aad u taqaana great people ama dad maxaan ku yiraahdaa guulo waaweyn xaqiijiyeen. Dadka ida dhammaantood hadaa fiirisid waxaa jirta dhacdo markii ay ku dhacday wax weliba isbedeleen. Buwaagta horumarinta nafta ka hadlaan markaad akhrisatid oo aad dhugutid waxay ku sheegayaan dhammaantood waxaad arkaysaa in dhacdo yar ay bedeshay ama dhacdo weyn ay bedeshay qofka. Dhacdada ha ahaato dhacdo ruuxi ah ama dhacdo physical ah ama dhacdo social ah. Dhacdo ruuxi ah markaan ku leeyahay waxaa weeye adigoo masaajidka ku jira ayaa laga yaabaa inaad wacdi ku soo gaaro ama saaxiib aad leedahay uu kula hadlo oo warka uu kuu sheegay uu ku dhaadhaco oo maxaan ku yiraahdaa qaab fikirkaaga idil oo hal mar isbedelo. Ama qaab physical ah markaan ku leeyahay waxaa laga yaabaa in ay si wax ku soo gaareen gacanta laga gooyay ama accident kala aad gashay oo maxaan ku yiraahdaa labadaada lugood aad beeshay ama lixdaada lixood midun aad beeshay. Kadibna qaab fikirkaaga sida wax uu arkayso idil ay isbedelaan. Dabcan social markaan in leeyahay waxaan ka wadaa yacni dhibaatooyinka socialka marar qaar markay inay ku soo wajahan laga yaabo. Ka soo qaada qof aad jacayl idinka dhaxeeyo dhintay ama waalid baa ka geeriyooday ama xaaskaaga baa geeriyooday kadibna noloshaadii hal mar bay kala wareeganaysaa. Kala wareega nololeed ee qofku uu ka soo tagayaa nolol iska caadi ah uu noqonayo extraordinary ama great person uu noqonayo ama sameehe si uu great person u ahaa ama qofka dhaxtaalka ee bulshadiisii dhaxdu ku jiro sidoo uu ahaa intay dhibaato dhacdo dhanka kale uu u laamayo ayaa la yiraahdaa paradigm shift. Marka ani ahaantay waxaan jeclaystay inaan ka eego qaabka positive-ka ah ama dhanka wanaagsan aan ka eego. Tusaalooyin xul ah ayaan soo qaadan doonaa ayada oo maaragtaanay advice qof la sii ah ama talo ama hadal lagugu soo tuuri ah waxaad si fiican ugu dhugan kartaa nolosha ninka lagu magacaabo Maxamed Cali Kalaay. Maxamed Cali Kalaay wuxuu ahaa feeriyaan looga kala baqayay xerada feerka intii u dhaxaysay 1960 ilaa laga soo gaaraa 1980 inta xerada feerka asaga u kala xirnay wax gacan soo qaadi karina ma aysan jirin. Yacni dabcan waa mar uu ahaa 20 jir ilaa uu ka gaaray 40 jir. Markuu 40 jir ka gaarayna waxaad xasuustaan inuu maartay ku dhacay cudurka Parkinson's disease oo uu maartay jirkiisa saanan kari waayay oo gacmihiisa ay qarqarayeen. Ninka hada dhacdada ka dhigtay great ama in uu loo garto the greatest of all time nin kasta oo ciyaariyaan ama wax la xiriiro sports la xiriiro uu u garto great person waxaa keentay dhacdo cajiib ah. Asagoo 12 jir ayaa beskil uu lahaa laga xaday. Markaasuu tagay maarta police station ka si uu report garay. Waagii uu maarta uu report ka qorayay nin askartii meeshii taagneed oo report-ku u sheegay kamid ah ayuu wuxuu ku yiri tuuga haddaan qabto waan feeraya. Markaasaa ninkii askariga ahaa wuxuu ugu jawaabay sax laakiin soo kama fiicno intaadan wax fiirin inaad si wax loo feera barato. يعني واد سجا أما هذلك يعني إن wax feerti inaad barata ayaa ka wanaagsan intaadan wax feerin
madaxiis way u dhaadhacday waxbuu ka saaxan waaye dopamiinkiisa ayaa maaragtaanay sara kacay dareenkiisa ku aadan feerka iyo maaragtaa dagaalka isbedelay wuxuuna noqday maxaan ku yiraahdaaye mid u heelan inuu ka soo baxo dagaalkaasi inuu ka soo baxo yacni oo uu noqdo feeriyaan caan ah uu noqdo 2006 asagoo 20 jir ah ila maxaa yeelay wuxuu dhashay 1400 wuxuu dhashay 1942 1906 markii la marayena yani oo mar uu yahay 20 jir uu yahay wuxuu ahaa mid xeerada ka saarayay dadkii waaga loo garanayay libixiyada boxingka sida Sonny Liston ninka aan ugu soo taga gees oo maxaa yeelay wax bedelay way erayada kooban ee uu ku yiri ninka lagu oran jiray Joe Martin ama booliska uu u tagay uu report garay taa markii laga soo tago ikhwatal kiram anaga ka muslimiin ahaan waxa jira dad noola soo diray inay si ay noo soo gaarsiiyaan waxyiga dadka dhammaantood haddaa fiirisid dad iska caadi way haayeen ilaa ay goorun intii loo yeeray ay wax walba isbedeleen nabiyullaahi muusa calayhi salaam nin iska caadi u ahaa dadka ku dhex noolaa nin buu dilay wuu cararay markii la yiri reetolka way ku dil rabaan arliga madyan ayuu aaday markuu madyan uu shaqeeyay nabiyullaahi shucayb 80 sano iyo xogaa gabar la siiyay xoolo la soo helay uu soo tagay asagoo dhaxdaa socdaa la yiri kaale nalba meel laga tusay markaasuu yiri nalkaas inaan dib idinkaga soo qaado ama in hanuun laga soo helnaa laga yaabay oo waxna hago oo jihad meel bay naga jirto aan ka ogaana laga yaabay bal intii ugu suga markuu meesha tagin waxa lagu yiri faqlan alayk innaka bilwadi almuqaddas tuwa kabahaaga sib waxa joogtaa maxaan ku yiraahdaye meeshii muqaddaskeed baa taagantahay kadib baa mucjisaadkii loo soo dhiibay maankiisoo idil baa rogmay sida ninka cabsida la cararay uu ahaa wuxuu soo laamay asagoo ah ninka fircoon intii soo hor istaago u sheegaya xaqa nabiyullaahi muhammad sallallahu alayhi wasallam asagana taa akolo kama dheero oo maan rago waa maray asagoo iskaga sugan qaar xira وكي ماركتانا محن كيرداي انتي لو إمادي جبريل وإمادي كيري اقرأ قولها ما أنا بقاري ورأنا مدو حقرية مي لما هاي النبي موسى نهين مدو حقرية موسى نهين مدو حقراء كدبنا مركاسة ليري اقرأ باسم ربك الذي خلق شنت آيضا سورة العلق وقول ريسا دبعا كسو دقين ما انكيسو إذ البايس بدلي وكا يعني أقول نمذا وكسو كري ومارتانا ينكا اسك ضعيفكو اسك إيرجركا أهان جيريو مرنا بعشرة وهايو هوين إذا خديجة الأورنجري وشقيناي وحول البائس بدلي وحون نقضي النبي الله نبي الله أيول أيا لغا دقي ومحاكو إراداي رسالة لو ديبي تراد لسيايتاي محي وما أرسلناك إلا كافة للناس يعني دادكو إذل بالودري adduunku wixii dad joogo dhamaala la yiri dacwada aad gaartay dadka muslimiin ka rog waa ka jahligii iyo baadilkii yeelay maxaan ku yiraahdaa Saudi Arabia waaga ama dalalka khaliijka la isku oran jiray ayagoo maxaan ku yiraahdaa inay mugdi ku jira gabdhahooda maarata nolosha ku duugayaan neef geelo la soo qaraacay dartii sanada dhamaan in dagaal u socdo laga yaabo markuu u imaaday wax walba ay isbedeleen وإلهي سبحانه وتعالى بسببه وقدق ماركتاني دولكا شرفت لي مانتي تولي الأول هغناي الأول آداي ومحانكو يراداي منبع الإسلام
u noqday dhulkoodii markuu nabillaahi maxamed sala allahu alayhi wasalam ka soo baxay dhexda u xirtay uu diintii maaragtaan ay soo gaarsiiyey meel. haddii aan tusaalooyin kale aan ku siiyo dadka qorayaalka aan rabaa wax yar inaan kuu soo qaato. qoraaga lagu magacaabo Brian Tracy inuu nool yahaan filayaa. qoraaga muusan ahayn nin wax leh ama xoolo weyn leh muusan ahayn. markuu qodobkan uu ka hadlaya ay sidii noloshiisa u kala rogantagay wuxuu ugu magac daray The Revelation, yani waxyigii ayuu ugu magac daray. maxaa yeelay asagoo maaragtaanay iskuulan si fiican ugu baafoom garin oo dhexda ugu dhexbaxay shaqaale ahoo maaragta dhexda un ka shaqeynaya ayaa hal mar maskaxdiisa waxaa ku soo dhacday ma bilowdid inaa akhrisid waxa dadka guulaystaan ka dhigay inay guul gaaraan, dadka guuldareysteen ka dhigay inay guuldarro galaan, oo kadib maa ku dadaashid wax walba oo ninka guulaystay guushiisa oo u soo baxa aadna iska daysid wax walba mid walba guuldareystay guuldarrada u sababay. sida ayuuna ku noqday ninka maaragtaanay sanad waliba laga yaaba inuu soo saaro 4 buug iyo wax la meel aalo buugaagtiisa ay dunida meel kasta ay yeelaan. dhanka kale haddaan kugu soo eego waxaa laga yaabaa dhibaato adiga markay kugu dhacday aad u malaynaysay in ay ku horseedayso guuldarro iyo meel aad wax ka soo kaban karin, laakiin ugu dambeyntii laga yaaba inay kaa dhigto qofka halyayga ee maaragta loo wala hogto. hadda Soomaalideena rag ay bubuunayso aan kuu soo qaata Astaxajow wuxuu ahaa maxaan ku yiraahdaa nin iska dhalinyaro ah bookshop gadaya iska caadi dadkan bookshoopyada gadaan ka mid ah ayuu ahaa. kadibna maalmaha ka mid ah ayuu Ilaahay u soo adeegsaday nin ka tirsanaa kooxdan lagu magacaabo Arsenalka. markuu ninka u ciriftiray sarsaasta ay ku dhacday maxaan ku yiraahdaa riibsigiisa ama kuwan lagu yiraahdo feeraha ku dhacan oo thoraxka ka mid ay ku dhacday, kadibna neerfiisa ay wax beeleen ilaa uu maarta hadda curiyaan iska noqday ninka wheelchair ka saaran. laakiin wheelchair-ka inuu saarmo faa'iido baa ugu jirtay waa dhihi kartaa ilaa maxaa yeelay noloshiisa ayaa waxay u rogantay dhan ka wanaagsan dhankii uu markii hore ku socday. hadda dabcan wuxuu ahaan lahaa ninka buushobka uun iska taagan, laakiin intii maankiisa uu rogmay ayuu noqday maantay tolinin wax soo saar leh. يعني كورن إنك وقعد عدوي يوتيوبر أنت محن كذا هذا مرك اللي جا حلا يو وإنك وقعد عد ما أنت تقول نقول بقولي أستحاجي وقفل بقودا و يعني هو كتر سن يوتيوب مرك قف صومالي يوتيوب هذا ديد با ما نكيس وحكوسه دعي أستحاجيو. إخوة الكرام دبعتك وقول عيسى أما دبك كسو جارية هذا أقول فكرت قاب وأنا أحسن قاب تجن أقول فكرته وحلاقي يا بينو كوركو لأن وأنا أحسن adigana maxaan ku yiraahdaa aad guul ka gaartid. marka dhacdooyinka nololeed ee ku soo wajahaya maalinba maalin si wanaagsan u dhugo oo si maxaan ku yiraahdaa xad dhaaf ah u fiiri, kadibna casharka kugu jiro oo Ilaahay kugu kaydiyay kala dhaxbax. ahaw mari waliba mid diirad saarkiisa uu soo joodo. dabcan waxa laga yaabaa casharka ku baranayso jaamacadda inay ku bedelaan, macalinka jaamacadda ku baraya hadal uu yiri inuu ku bedelo, waxa laga yaabaa hadal aad ka maqashay meel seminar inuu ku bedelo, waxa laga yaabaa hadal uu qof qaraabo aadkiin uu kugu dhahay inuu ku bedelo, aabaha hadal uu kugu yiri inuu ku bedelo, waxa laga yaabaa geerida qof aad maarataanay aad isu jecleedeen markuu meesha ka baxo albaabkii uu ka baxay oo qali ah markaad aragtid inay wax walba isbedelaan. marka nolosha aad ku jirto mid aad ku qanacsantahay daysan ahayn maan rug ma suubin kartaa, waa suubin kartaa haddii aadan lahayn qof ku maaragtaanay mar walibaba kugu taagan oo si wanaagsan wax kugu sharax. adiga noqo mid eego buug akhriska waa shayga qaaliga aan qofka kula talin lahaa, maxaa yeelay buuggaasi wuxuu ku siinayaa advice uu ku siin lahaa aabaha ama uu ku siin lahaa qof ganacsade ama uu ku siin lahaa maxaan ku yiraahdaa
waano aad ku noqon lahayd qofka doonaysa inaad ku noqotid intaan ayuu ku kooban yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.